sharcigan iibka qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta aqrinta koowaad waxa marsiin doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay yeeshaan kulankoodii caadiga xildhibaanada ayaa sharcigan oo lagu sheegay inuu muhiim u yahay shuruucda dalka iyo horumarintiisa isla markaana goor hore loo qeybiyay maanta ay faaqidi doonaan faa'iidooyinka uu leeyahay iyo waxyaabaha ay ku darayaan ama ay ka dhamiyaan intaa kadib ayaa guddoonka u diri doona sharcigan guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si ay ugu soo talbixiyaan ayna ku soo lifaaqaan aragtida xildhibaanada ay ka qabaan sharcigan kadib markii ay soo jeediyaan sharcigan oo goor hore xukuumadda ay soo ansixisay isla markaana loo gudbiyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay hadii la meel mariyo durbo ku dhaqankiisa la gudageli doono si Soomaaliya ganacsigeeda iyo kubcinta dhaqaalaheeda uu door weyn kaga qaato wadooyinkii ugu dambeeyay ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay meel mariyeen shuruuc fara badan kuwaas oo qaar kamid ah imika horyaala golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya halka qaarka kalena lagu sheegay inuu horyaalo madaxweynaha dawladda Soomaaliya si uu u saxiixo inta kadibna looga soo saaro faafinta rasmiga ah